والله بالله تلا go'aanka hawiyada waxa weeye in la dilo farmaajo inuu iska bixin madaxtooyada haddii toddoba bari uga guuri waayo wixii ku dhaca asaga mas'uuliyadda qaadaya anaga hawiyana lama haysto waa la dilaynaa beedkiisa aan la saarin madaxdiisa ku dhacayna toddoba wiil buu naga dilay hadda koox Cabdi Caash ku dilay oo meedkooda la yahay ayada ugu aragna meedkiisa la arki maayo waa gumayna marka dilay meedkiisa waa inaan helnaa beesha marixaan oo kala soo waadkeeda iyo odayaasheeduna jawaab degdeg ah inaan ka helnaa oo afar maajo inay qaban karaan inay qaban waayaan haddii labaas mid aan ka weyno xoog baa iskaga saarayna oo daahiman Ameerika saaray maxaan siyaad baraxman ka saaray cid kastoo soo gurisa ka saarnay hawiye beesha hawiye waa cudud xamar degan cidna uga habaysamayso 1 milyan oo qori haystaan ciidanka 1 milyan qorina kuwa ku filayeen ka saaraan Greek wax ma jiray shay toosan madaxweynaha waa uu talahay wallahi ila fiyo shay toosan ka bacd waxa laga inuu walaayay farmaajo waxa misay inuu waa inuu yahay way dhaqaatiirto beesha caalamka inay baaraan dhaqaatiirto soo diraan weey ramayna ka hadla warqadii xalay uu soo saaray madaxweynaha ku meel gaarka ama madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed Abdullahi Farmaajo warqadaas warqad sharciga ma ahayn mana aaminsanin fiyo inuu qoro warqadaas waxa nin waalan walaalkiisa oo fiyo madaxweynuhu Farmaajo waa nin waalan dadka Soomaaliyeed baa la rabaa inay gacanta midigta iyo gacanta bidix labada qabtaan labada gacmood waa ninka shalay taraasulo yiri doorashada ra'iisul wasaaraha wadaya maanta waa ka qaaday shalay waa la maanta waalaya waxaan ka codsanayaa golaha musharaxiinta guddiga badbaadada qaran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taliyaasha ciidamada dhammaan waxaan ka codsanaynaa in gacan wada shir ku qabtaan ninkan madaxtooyada laga saaro nin waalan weyn nin xil qaadi kara maaha inuu dagaal sokeeyo ka shaqeynaya dadka in isku laayo ka shaqeynaya mana ka yeelin warqadaas uu qoray mana aqoonsanin waxaan kaloo rabaa inaan halka uga hadlo Soomaaliya shalay ayadoo la joogo beesha caalamka iyo musharaxiinta iyo kulli joogaan buu warqad qoro u leeyahay waxaan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu doorashooyinka qabto sagaal bilood laga doorashada socota waxa laga wadi waay laga socodsi waay isagu ahaa hortaagna markasta ninka hortaagan doorashada sida wala socono oo bay dhabashir ku qabto xagga shir ku qabto markii la shiraba hadda wuxuu marayaa Sayfaray iyo Colonel iyo dadka laayay iyo intii dambiilaha laga dhigay waa xildhibaano dagaal buu abaabulaya raalina kama ahin inuu dalka dagaal ka rido mana ka yeelayno waxaan leenahay ninkaas intii fiyo gacanta qabato Soomaali ma dagaal ma baahna hadii la qabadiido waa la iska celinaya dadka xamar musharaxiinta iyo golaha badbaadinta iyo siyaasiyiinta hawiye iyo odayaasha dhaqanka waxaan ku baaqaynaa gacan bir ay ku qabtaan oo waliba ay maxkamad la geeyo la togto marka ugu dambaysa farmaajo madaxweynihii hore oo tasuurka u baabi'ay oo qalad ka galay dalka Soomaaliya oo shalay subax oo soo aan madaxweynaha jaranada dadka siinayeen ma yarka waalaya oo dadka inuu ku laayo wax suurtagal ma aha sharciina ma aha madaxweynaha Soomaaliya ma aha waa nin shakhsi oo waalan ninka shakhsiga waalan waa la iska qabtaa dadka waxa maqli jiray meesha la yiraahdo Greek waxa maqli jiray shay toosan madaxweynaha waa uu talahay wallahi ila fiyo shay toosan ka bacd waxa laga inuu walaayay farmaajo waxa misay inuu waa inuu yahay way dhaqaatiirto beesha caalamka inay baaraan dhaqaatiirto soo diraan weey maskaxiyan in la baaro dhimirkiisa la baaro waxaan rabaa halkaan aan tala ka siiyo ra'iisul wasaare shalay iyadoo madaxtooyada laga xoreeyay adaa badbaadiyay soo dhigay oo yiri gadaasha iyo gacan loo taagan maanta saga ku haysto xilka qaadaya waxaan ka codsanayaa baaq degdeg oo dadka Soomaaliyeed ku hadlaysid waa ninka doorashada dad sheegaysid ila soo jeesid si degdeg ah u sheegto tirad maxamed Abdullahi Farmaajo doorashada ka wadi laa dadku iyaga iska saar iska qabanaya loo baahna ciidan shay min qabta dadku hawiye iyo Soomaali wixii doorashooyinka musharaxiinta ah waxaan ka rabaa baaqaas inaan marwada u faa'iisto madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Qorqor madaxweynaha Farmaajo wuxuu gobolka Gadaa iska leh nin ay xukumo maray haddii ra'iisul wasaaruhu galmudug kula yeelan waayo talada galmudug wax ka siin weydid haddii dad Soomaali galmudug madaxweynaha ka noqon meesaan labadiina waa isku burburaysan waxaan rabnaa inaad tixgelisid madaxweynaha galmudug oo madaxweynaha oo sharafta leh inuu tixgeliyo ra'iisul wasaaraha oo ah nin walaalkiisa ra'iisul wasaaraha dadkana ah una ogolaado talada doorashooyinka galmudug inuu wax ku yeesho codsigaas madaxweynaha soo jeedina madaxweyne anagoo ku taageersan shacabka galmudug ah waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha oo reer galmudug taliisa ila qaad hawiye dad hadda xoog lagu haysan kara ma hadii xoog lagu haysan Ameerika haysan lahayd adeerkiis maxaa siyaad baraysan lahaa waxaysan lahaa xasan daahir xukumi lahaa hadii hawiye xoog lagu xukumayo muqdisho dhaqaad ku hayay muqdisho waxay uga shahay dowladnimo sharaf bay uga shahay dowladnimo rabtaa madaxweyne rasmi rabtaa door sharci jooga qaynuun bay rabtaa sharci lagu maamulay rabaan ma nin aan xilkiisa maadin ma xukumi karo halkaan sare waxaan ugu hayay ra'iisul wasaaraha oo aan eedaas haysanaa ra'iisul wasaare cadde mowqifkaaga aad ka aaminsan tahay madaxweynaha Soomaaliya haddii aad caddayn wixii hawiye ku dhaca ama Soomaali ku dhaca ama xamar ku dhaca adaa mas'uuliyadda qaadaya beesha daarood waliba ugaaska mareexan beesha daaroodna ugaaska mareexan
dad darisaan nahay dad wada dhashay baan nahay dad deegaan ka dhaxayaan nahay dadka in la isku diro lama baahna ugaas ninkaas naga qabo nafiyow maaha hadda tol kale saakan ku dacwanina ma naqaan ugaaskii marixaan baa jooga ugaas ninkaas naga qabo adaa ugaas adoo wax dadka yaan la isku dirin haddii 24 saac soo socdaan jawaab ka weyno beeshu ka dhashay haddaan jawaab ka weyno isaga wixii xamar ka dhacay soo deesaa qaadaya annaga hawiye haddaan nahay muqdisho xoog baa uga saarnay maxaan siyaad bare haddii hawiyana maxaan siyaad bare xoog baa uga saarnay ameerika xoog baa uga saarnay dalka annaga askare haddii aan hawiyanahay waxaan ku baaqayaa beesha beelweynta hawiye u baaqayaa waa inaan helnaa beesha marixaan ka dhashay ugaaskeeda iyo odayaasheeduna jawaab degdeg ah inaan ka helnaa oo 4 maajo inay qaban karaan inay qaban waayaan haddii labadaas mid aan ka weyno xoog baa iskaga saaraynaa u daahiman ameerika saarnay maxaan siyaad bare xamar ka saarnay cid kastoo soo gurisa ka saarnay hawiya saaray hawiye beesha hawiye waa cudud xamar degan cidna uga habaysamayso 1 milyan qori haystaan ciidanka 1 milyan qori waa ku filan inay ka saaraan wallahi billahi talaa go'aanka hawiye qaatay waxa weeye in la dilo farmaajo inuu iska bixin madaxweynada haddii 7 bari uga guri waayo wixii ku dhaca isaga mas'uuliyadda qaadaya annaga hawiyaano lama haysto shalaan ugu inaysan maxaa siyaad barraa naga taabateen marixaanow war ugaasow war shalaan eedii hore qabni war maanta naga gacmaha qabta laga saaran ninkan warninkii cishada haddaa cishan weydaan wallaahi waan dhaartay nin odayo dhaartaanay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la dilaynaa beedkiisna aan la saarin madaxiisa ku dhacasaynaa 7 wiil buu naga dilay hadda kahor cabdinaashkur meesha ku dilay oo meedkooda la yahay ayadaa ugu aragnaa meedkiisana la arki maayo waa gumaynaa markaan dilna meedkiisa